بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصحاب تقاليق أهوى ولالكينا عبد الرحمن علي حسن أسود هذا جنال كابتن عاقل. muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa macluumaad ku saabsan deegaanka Goobweyn. Goobweyn meel loo dalxiis tagi karo, dhul barwaaqaysan, dhul hodan ah, dhul aad iyo aad u qurux badan, bilicdiisuna tahay mid dabiici ah. Waa meesha ay iskaga darsamaan webiga Juba iyo badweynta Hindiya. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka. Goobweyn waa deegaan magaalada Kismaayo u jirta 25 kiiloomitir dhinaca waqooyi, waxaana mara dhulbaraha caalamka. Waxaa degan beeraley iyo xoolo dhaqato. dadkeeda badanaa waxay ku tiirsan yihiin xoololey, beeraley iyo waxay ka tiirsan yihiin iyo kalluumaysato. guri aan oolin oo ma aragtay kalluun aan laga gaadayna ma jiro, guri xoolo aan joogin ma jiro, guri yaanba aan yaalin ma jiro. intaas way isku qabaan. dadka beeraleyda ah dalagyada ay abuurtaan waxaa ka mid ah misgada, muuska, cambaha iyo dalagyo kale oo badan. waa deegaan taariikh fog leh, waana deegaan ku caanbaxsanaa waqtigii gumaystaha iyo ka horba ganacsiga dalagyada iyo xiriirka ganacsi uu la lahaa ajaanibta imaan jirtay Soomaaliya ee ganacsiga kala dhexeeyay Soomaaliya, sida ganacsato kaga imaan jirtay Carabta iyo ganacsato Hindi ah. waa deegaan qurux badan, waxaana la sheegaa in taariikh ahaan ay ka fac weyn tahay magaalada Kismaayo. magaaladu waxay caan ku tahay bilicdeeda dabiiciga ah. Berihii dambe waxay magaalada noqonaysay mid soo kobcaysa oo indhaha dadka soo jiitay, dad badanna ay uga imaanayeen caasimadda dalka iyo goobo kale oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ah si ay uga dalxiis tagaan, uguna raaxaystaan bilicda deegaanka, soona booqdaan mucjisooyinka ay leedahay dhulkaasi, sida barta ay iskaga darsamaan webiga Juba iyo badweynta Hindiya. magaaladu waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan Jubbooyinka. waxaa mara webiga Juba, kaas oo biyaha ku shuba badweynta Hindiya. waxay kaloo caan ku tahay geedaha sida qumbaha. dalkeenu waxa uu leeyahay goobo aad u qurux badan, muhiimna tahay in la soo booqdo oo loo dalxiis tago. hase ahaatee ay dadku ka qarsan yihiin goobahaasi, ayna iska indhatiraan iyagoo ku mashquulsan dhul aysan lahayn, doonayaanse in ay ku raaxaystaan dhulkaasi. muwaadinka dhabta ahow, ogow meel loo dalxiis tago waxa ugu wanaagsan waa dalkaaga hooyo, oo aad gudihiisa kheyraadka yaala ka faa'iidaysato oo aad soo booqato. Goobweyn waxay ka mid tahay meelaha ugu quruxda badan loona dalxiis tago dalka Soomaaliya. waa dhul hodan ah oo kheyraad badan leh, bilicdiisuna tahay mid dabiici ah oo Allah subxaanahu wa tacaala ugu manaystay dadkiisa. alxamdulillaah, alxamdulillaah, alxamdulillaah. Allah naga dhigo kuwa u mahadnaqa Allah subxaanahu wa tacaala nimcada uu siiyey, barwaaqada iyo dhulkaba. inta aanan ka dalban waxa inaga maqan. noloshu waa sida adiga oo aad jaranjaro fuulayso oo kale, marba marka ka dambaysa oo aad talaabo qaadayso. waxaase sanado kadib arki doonaa dalkeena oo dhisma, gobol iyo caasimadba, kuna dhisma ducadeena iyo dadaalkeena joogtada ah insha Allah. ahaw mid ku faraxsan dalkiisa hooyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.